gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo maanta khudbad ka jeediyay fadhiga guud ee baarlamaanka ayaa si rasmi ah istiqaaladiisa ugu horgudbiyay xubnaha golaha shacabka una sheegay in uu xilka ka tagay kadib markii dhawaan uu isxasilay. waxaan golaha sharafta leh hortiina u imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo in aan xilkii amaanada ahaa ee Allah subhanahu wa ta'ala ka shukro aad idigu amaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo. waxaan idinka codsanayaa inaad xilhayntii guddoonka aad iga xasisaan shaqadeedana iga oggolaataan. gudoomiyaha ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay kulanka. wuxuu ka hadlay muddadii dheereed ee uu xilka hayay iyo waxyaabihii keenay khilaafka ugu dambeyn sababay in uu xilka ka tago. Jawaari ayaa sheegay in maanta aysan jirin koox guuleysata ama laga guuleystay. wuxuu ku baaqay sidoo kale in la ilaaliyo sareynta sharciga iyo madax banaanida baarlamaanka. ma jiro maanta qof ama koox guuleysatay ama laga guuleystay ee waxaa guuleystay shacbiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo fiiro dhow u lahaa hadba sida aan ugu dhaqmayno una fulinayno xilka ay noo dhiibteen. waxaa guuleystay sareynta sharciga iyo dhaqanka dimuqraadiyadeed oo u horseedaya in nabad iyo xasilooni iyo codayn ama kala roonaansho lagu kala wareejiyo xilalka siyaasiga ee lagu matalayo shacbiga. nidaamkaas oo dan u ah dowladnimada iyo danta guud ee muwaadin kastoo Soomaaliyeed iyo dadweynaha ku nool Soomaaliya. gudoomiye Jawaari ayaa marka uu khudbadiisa soo gabagabeeyay si aad ah ula kaftamay mudanayaasha baarlamaanka waxaana markaa kadib isqabsaday sacab hoolka kulanka iyadoo xildhibaanada dhankoodana ay ku sagootiyeen si wada jir ah Jawaari heesta calanka. idinkuda ii ballanqaada ilaa iyo inta aan ka ilaabayo guddoomiyenimada maalmaha hore inaan isu booqasho badnaano maadaama aan 5 sano iyo dheeraad aan meel ku xirnaa aan hadda soo madax banaanaaday si aad ii bartaan xamar meelaha laga galo iyo meelaha lagu baahdo. xildhibaanadii taageersanaa gudoomiye Jawaari iyo kuwii ka soo horjeeday ayaa labaduba sheegay in gudoomiyaha uu qaaday tallaabo taariikhi ah si khilaafka siyaasadeed ee ragaadiyay baarlamaanka loo dhameeyo. runtii gudoomiye Jawaari aad u mahadsan yahay arinta sida meeshu hadda ka qabtay waa ugu mahadcelinaynaa maadaama mooshin culus laga keenay 107 gaarahayay oo buuq iyo waxyaalahan loo baahnayn baarlamaanka soo dhaxgashay markuu fiiri xaaladda qiimeeyay oo asaga marka go'aansaday intaan cod qaadisba la gaarin inuu istiqaalo keeno si ma aragtay asiga oo يعني odaynimadiisa iyo sharaftiisa iyo heybadiisa asigoo leh baarlamaanka dirdaar ugu dhaafo arintan baarlamaankan u fududeeyo ummadda Soomaaliyeed waa ku mahadsan yahay. mar walba sharcigu waa sareeya anigu mar walba waxaan ku hadlayay oo aan gudoomiyaha ku garab taagnaa dastuurka iyo xeroosaadka in uu ahaado sareeya insha Allah waana sareeya waana badbaadinay waxaan leenahay Soomaaliya Soomaali baa leh saaxiibayaal jaalayaal walaalayaal midnimadii iyo wanaaggeennii maanta bilaabmeen hore ha loo socdo. si kastaba ha ahaatee gudoomiyihii golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa soo gabagabeeyay muddo ku dhow 6 sano oo uu soo maamulayay baarlamaanka waxaana 2 jeer loo doortay xilka gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey uu si rasmi ah ugu wareegay xilka gudoomiyaha golaha shacabka inta baarlamaanka federaalka uu ka soo dooranayo muddo 15 cisho gudahood